السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee igu xiran muuqaalkan insha Allah wuxuu noqon doonaa muuqaaladii aad uga faa'iideysan jirteen oo aa u kala tartami jirteen laana fursad weyn baa ka muuqata. laamiga aan ka soo bilaabay socodka balse laamiga ilaa dhulka maanan idin soo duubinin noqodka rabaa inaan idin duubo. Kilibkii raa ee laamiga aan ka qabtay iyo waxaan isku xiray kii markaan dhulka imaaday aan ka duubay. waxaan taaganahay boos cabirkiisu uu yahay 20 lagu dhuftay 15 ku yaala Dar es Salaam, qaasatan Dar es Salaam B ama Dar es Salaam B macnaheedu waxa weeyaan Dar es Salaam talabaad ee waa qaybtan hadda dhisan, B na waa qaybta mustaqbalka soo socday dhow waliba la dhisi doono. booskan waxaan idin kaga warbixin doonaa qiimihii hore u gaaray inta kiiloomitir laamiga u jiro, sharaxaad dhameystiran iyo biida dhanku uga yaala intaba. ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa inaan zoom dhaho si aad u aragtaan state-ka cusub ee hadda la dhisayo. cirka waxaa ku jira ceeryaamo maal dhaxaa, roobka markuu imaan rabo cirka caad baa koradii wax walba aadan arki karin sida marka caadiga ah u arkaysa aadan u arki karin. hadda kaamirada zoom soo dhahay ilaa state-ka ka aragtaan. state-ka cusub ee dhismaha lagu wado ee Mumtaz State waa anteenada idin muuqato. hadda arki kartaan guryaha haamankooda, dhul dalcadaha horta saarana, dhulku waa dalcad, laakiin haddii aysan ahaan lahayn roobkan hadduusan jiri lahayn oo roob uusan waqtigaa di'i lahayn aan joognay meesha si waadaxa u arki lahaydeen. balse waxaan isku dayayaa inaan zoomka soo weyneeyo. waa aragtaan hadda waxaa cadcada idin muuqdo waa haamankii guryaha korka ka saarnaa. anteenadaaba si fiican ugu jeedi kartaan laamigay saaran tahay. meeshaan markaa taagantahay marka waa u jeedaa halkan aniga aan taaganahay ilaa laga gaaro state-ka dhisan ee anteenada agteeda ka muuqdo waa dhul shirkadda ay leedahay. dhul kaleeto kuma dhex jiro. waa dhul aadan ka helaynin hal boos oo iib ah. macnaha meeshaas markaa kasoo tagtid state-ka hadda idin muuqdo ilaa halka aan aniga taaganahay ee dhulka ku yaalo tan waa dhul shirkadeed. dhul shirkadeed dadka qaar waxaa laga yaabaa inay isdhahaan shirkadda maxay tahay. Dar es Salaam waxaa ognahay shirkadda Hormuud maalgelisay. shirkadda Hormuud waa shirkad Soomaaliya oo dhan ka dhaxayso, qolo gooni iyo qabiil gooni midna aynan lahayn, oo shirkad Soomaaliyeed ah, sheerkuna Soomaaliya oo dhan ay sheer ku leeyihiin. okay, waxay samaysaa marka shirkaddu dhul badan ay iibisaa. dhulka badan markay iibiso waxay ka dhistaa guryo stadiya ah. stadiya markay dhisto kadib waa la sii iibiyaa. Dar es Salaam sidaas ay magaalo ku noqotay. qaybta hadda dhisan ee eeda, qaybtan hadda aan joogno waa biida. dhulkan waa dhul qiimaha uu gaaray xilliga hore ee uu aad u sareeyay. macnaha lacagta uu gaaray waa 17 meelahaas uu gaaray. lacagta intaa la eg uu qiimihiisa gaaray. weliba meeshaan hadda aan joogno ama goobkan hadda dhulkan aan idinkaga warbixinayo, idinkaga sharaxayo, xilliga lacagta dhaqdhaqaaqa badan ee lahayd dhul lagama heli jirinba. dhul in laga helo dhulkan way adkeed. meelo ka fog baa lacagaha la gelin jiray. balse hadda waxa muhiimka ah ee aan idinku dhiirigelinayo qofka maanta halkan boos wax iiba meeshaan hadda ka haya, halkan boos qaadan karo waa in uusan ka labaynin, maadaama dhul 12 gaaray uu yahay. sidoo kale dhul shirkadii dhulkeeda ku dhex yaala uu yahay. dhulkan hadda aan dhex mareyno booska sida haddaan uga soo dhaqaaqno dhulka shirkadda soo galina ilaa laamiga dhulka shirkadda soconay. booskaas waxaan idin tusinayaa inta uu u jiro guriga sambalka ah. dhulkan hadda aan ku socono dhan dhulka maalgelinta lagu sameyn rabo ee waxa weeyaan booska iyo laamiga u dhaxeeyo. midna ogaada dhulku deegaan inuusan ahayn. horta waxaa u jeedaan su'aalaha iga weydiinana dadka qaar oo muuqaalka anigoo sidaan u sharaxaya waxay ku leeyihiin dhulka ma dhisan karaa. meeshaan hadda sidaanay duur u tahay, meel hadda la dhisi kara ma aha, laakiin mustaqbalka dhow meel shaqadeedu ay bilaabanayso si magaaladaas kaleeto Dar es Salaam oo aragteen loo hormariyay si ka weyn loo horumarin doono waay. laana biida dhulka ay shirkaddu ku leedahay wuu ka weyn yahay ama wuu ku 3 jibaarba dhulka kaleeto hadda qaybta dhisan ay ku lahayd oo ay maalgelisay.
wuu ka wen yahay degmo cusub meeshan loo magacaabay ilaa xad way fidaysaa taa ha ka shakin inay ballaarato weynaado fito ha ka shakin midda kale booskan lacagtiisu hadeertaan waa $6,200 $6,200 weeyaan booska hadda aan kasoo tagnay lacagta uu gaarayna waa 18,000 ilaa 20,000 ma aaminaysaa dhulkan asagoo sidaan door u ah oo qiimahaas gaaray maxaa gaarsiiyey dhulka shirkadda oo la maalgelin lahaa sidii Daarsalaamta kale laga dhigi lahaa uu daris leeyahay intaa uu qiimaha ku gaaray qofka marka meeshaas booska ku leh ee booskiisa 18,000 ugu fadhiyo iyo adigoo maanta $6,200 ku heshay isku mid ay tihiin carafka meesha uu ka sugtaa ka suganaysaa guriga sambalka waa kana gurigan waxaa loo diyaariyay meeshan markii la maalgelinayo la dhisay in alaabaha la dhigto ama waa xafiisyo waa kan kiiloomitir ahaanna booska wuxuu u jiraa gurigan 1 kiiloomitir iyo 500 tilaabo 1 kiiloomitir iyo 500 tilaabo aan ku dhex soconayna waa dhulka shirkadda hadalka ay la fahmaan waa dhulka maalgelinta lagu sameyn rabo booska aan ka nimid ilaa guriga sambalka ama ilaa laamiga dhulka ku yaala waa dhulkii la maalgelin lahaa lana dhisi lahaa booskaas aad u jaanis u yahay aad iyo aad buu jaanis u yahay jaaniskiisa markii laga tagana dhul ahaan waa dhul siman oo dalcad ah oo aad u quruxsan waa macnaha meesha ku yaala meel dalcadaho maasha Allah qoofka meesha ugu quruxsan buu ku yaalaa laamigana dhulka wuxuu jiraa 2 kiiloomitir aniga hadda wareega soo galay wareegan hadaan soo gali lahayn oo si toos u aadi lahayn state-ka hadda dhismaha lagu wado inta laamigu nooga dhawaan lahaa saan nooguma dheeraan lahayn laakiin meeshan waxa uu soo maro xayadina guriga sambalka inta si dabcan waan aragtay dadka dhulalka maal gasto ama i weydiiyo dhulka Daarsalaam aad i weydiiyo waan u sheegaa muuqaalkan waan uga faa'iideysanayaa waan ugu sharaxayaa hadaa rabtid dhul deegaan ah lacagtaadu waa in 20,000 iyo wixii ka koreeya ay tahay macnaha dhul maanta aad dhisan kartaa hadaa rabtid 20,000 wixii ka sareeya waa inaad wax ku raadinaysid waa hadaa rabtid meel aad just hore ka dhisan kartid hadaa rabtid dhul deegaan ah laakiin deegaankiisu uu yahay teelteel macnaha deegaan teelteel oo kala yaro durugsan haduu yahay oo aad iska sugan kartid waxa ku heli kartaa 12,000 15,000 16,000 12,000 18,000 17,000 waa ku heli kartaa hadaa rabtid dhul oo 10,000 ka yar marna maskaxdaada aysan ku soo dhicin deegaan dhul deegaan oo korontadii gaartay oo maanta aad degi kartid inay noqoto marnaba aysan kugu soo dhicin dhulalka ugu faa'iidada badan waa kan hadda idin tusiyo kala dhulka ah laana waa dhul lacag badan gaaray maalgelin ay ku bilaabanayso macnaha maalgelin helaya oo dhulka shirkadda daris la aha ma ku dhex yaala markii la maalgeliyay lacagtiisu ay 4 jibaarmayso